zawjadaadu jannay ku noqonaysaa eeg markaad u naxariisanayso markaad maaragtay romantiga la samaynayso markaad masaaj u samaynayso markaad madaxa u duugayso ama u masaajeynayso markaad timir afka u gelinaysa isla sooman tihiin ee aad maaragtay markaad biyo u keenayso markaad cagahay maanta dhan ku daalanayd aad u masaajeynayso eeg maxaad ku helaysaa waa silcadii action ha waa silcadii waa bayci eeg markaan soo xasuustaa mantaqaana jannada hadalkaaga macaan ma gooyay ayadii ilaahay subhanallah ma soo xasuustaa wadhkur bi ilaahay yiri abdana ya wadhkur muxuu ilaahay yiri xasuuso oo soo xasuuso cibaadana ibraahim ya wa isxaaq wa yacquuba maxaa la yiri ulul aydi wal absar allah dadkaas iyagoo anbiya ah oo maaragtay adoomo ilaahayna wadkur cibaadana ilaahay markuu yiri marka iyagoo nabiye ah bay ulul aydi ahaayeen ya way shaqaysanayeen way xoogsanayeen rizq xalaal ridanayeen waxbay qabanayeen lixaadkani uu shaqaynayay wal absaarna way qabeeno basiiradu waxa weeyaan waa ajiib waxay lahaayeen meel fog bay wax ka arkayeen emotional intelligence bay qabeen ajiib insight bay qabeen waxay arkayeen meel fog bay wax ka arkayeen ummadooday u kurboonayeen ayaguba way isdhaafsanaayeen marka labadan qof ay isqabtaa absaartaas waa ulul aydi wal absaartaas waxay xasuusinaysaa mataqaanaa in labadan qof ee isguursanaysa hadday hadaf iyaga dhaafsan ay leeyihiin way wada joogayaan hadaf ilaahay dartii ah oo ilaahay in loo shaqeeyo oo laysgarabsado oo shaqadaa la wada qabto hadday ku talagaleen oo hadaf leeyihiin waxa weeyaan way daa'imayaan dadkaas laakiin hadday qofku hadaf lahayn